halkaad warkaasina kala socotaan daawadayaal waa stuudiyaha Somali Cable TV uu ku leeyahay magaalada London. muslimiinta ku dhaqan caalamka iyo kuwa wadanka Holland ayaa si weyn u cambaareeyay fal ay booliiska wadanka Holland kula kaceen dad ku dukanayay masjid ku yaala magaalada Rotterdam ee wadanka Holland. haddaba arintan ayaa waxay timid booliiska iyagoo sheegay inay ku raad joogeen oo ay raadinayeen mid kamid ah dadka muslimiinta ah ee ku dukanayay masaajidkaasi iyagoo sheegay inuu ninka ahaa nin dambiila. booliisku wax fariina umaysan dirin maamulka masaajidka sida wararka la sheegayo ay muujinayaan, waxaana la sheegay booliiska inay gudaha ula galeen masaajidka gudihiisa ay wateen iyo kabahooda iyagoo markaa ixtiraami waayay diinta iyo waliba goobaha cibaadada. wadanka Holland waxa uu kamid yahay wadamada sida weyn isu xilsaara ilaalinta diimaha iyo in lagu xadgudbo goobaha cibaadada. hase ahaatee ciidamada booliiska ayaa la sheegay dadkii magaalada ku tukanayay masaajidka inay si khaldan ula dhaqmeen oo ay handadeen. waxay soo kale sheegeen in eyga uu waxyaabo kamida afkiisa cadhuufta ka timid uu ku daadiyay goobihii lagu tukanayay masaajidka oo dhanna la sheegay in uu nijaaso noqday. muslimiinta ayaa si weyn uga carooday falka ay sameeyeen ciidanka booliiska. waxay sheegeen booliisku inay awoodi kareen in iyagoo aan eeyo la soo galin gudaha ay qaban kareen qofka ay doonayeen. qofka ay doonayeen ayaa la sheegay inuu ahaa nin dhalinyaro ah, balse waxa uu soo galay masaajidka iyadoo dadka ku tukanaya masaajidka aanay war ka haynin. laakiin iminka waxaa bilowday buuq fara badan oo ku saabsan sida ay wax u dhaceen. hay-adaha muslimiinta caalamka ayaa si weyn waxay u cambaareeyeen falka ay booliisku ku sameeyeen masaajidka oo ay markaasi si khaldan ula dhaqmeen. haddaba arintani waxa ay keentay in muslimiin fara badan oo ku nool wadamada caalamka gaar ahaan kuwa Yurub ay si weyn uga caroodaan falkaasi. wadanka Holland waxaa ku nool muslimiin fara badan oo asalkood ka soo jeedaan wadamada Morocco, Turki, Soomaaliya iyo meelo kale. waxaana iminka la sheegayaa dowladdu inay garawsatay qaladka ay sameeyeen booliiska, waxaana ay saraakiil ka tirsan hay-adaha ammaanku ay sheegeen in arintani ay ku dhacday si khalad ah. mas-uul ka tirsan masaajidka oo lagu magacaabo Cizzadiin Karaad ayaa sheegay in iminka shirkad madax bannaan ay bilaabi doonto in roogaga masaajidka la qaado, masaajidkana laga nadiifiyo waxyaabihii ay ku sameeyeen eygii iyo kabihii ay la soo galeen booliiska. waxaana la sheegay lacagta ku bixi doonta dib u nadiifinta masaajidka in ay bixin doonto dowladda wadanka Holland. عليه. لاحظوا من خلال كاميرات المراقبة أن الضباط جاءوا بلباسهم الرسمي ودخلوا بأحذيتهم العسكرية. أدخلوا معهم كلبا بوليسيا إلى داخل المسجد، وهذا الكلب سيقوم بعمله كما تلاحظون على أكمل وجه. عند warkii waad kala socoteen stuudiyaha Somali Cable TV uu ku leeyahay magaalada London. waa naga inta anigoo nadaara ayaa idin la socodsiinay. inta aan mar kale kulmayno meel kastoo aad joogtaan waxaanu idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.